kuwa kubadaha ciyaaro iyo kubaddu maxay tahay waa laastig hawo lagu shubay Soomaa kuwa waxa dheeldheela ee noloshoodiiba waxa ku dhameystay ay dhalinyaradeenu qaarkood ay horumar moodaan isku ekeysiyaan gaal waliba gaalnimadiisu waxa u sii dheer waa shahawaani laastiga yare hawada laga buuxiyay ayuu wax isku mooday isku qiimeynaya markaas dhalinyaradeenu ku dabalumeen waxaad ogaataa dhageyso almar'u ma'a man ahabba yawm alqiyamah bu nabigu alayhi salatu wasalaam ninba u yimid nabiga oo yiri nabi allah ninba dad jecel laakiin darajadoodii amalkooga ma sameyn karo ee nabi allah maxaad oran lahayd markaa buu nabigu cidda uu qofku jecelaado qiyaamaha la joogsanaya buu meel hadaad ku heesa aad jeclaato qiyaamaha yakaad la soo bixi hadaad ku kubada ciyaara aad jeclaato qiyaamaha yakaad la soo bixi hadaad siyaasi jeclaato qiyaamaha siyaasiga la soo bixi hadaad qabiil jeclaato qiyaamaha qabiil baad la soo bixi hadaad culimada rabbaaniyiinta jeclaatana yaka qiyaamaha la soo bixi hadaad Abi Bakr iyo Umar jeclaato Abi Bakr iyo Umar baad qiyaamaha la soo bixi hadaad Nabi Muhammad jeclaatana Muhammad alayhi salatu wasalaam baad la soo bixi insha Allah dhahada marka dhalinyaradii maadaama ay maqleen boqorku wuxuu damacsan yahay inuu ninkii qaysay wala uu gabadhiisa iska siiyo isagoo kale markaa iska soo dhigeen halkii la filayay isaga in loogu tagaayo 20 nuuciisa loogu yimiday markaas mid walba leeyahay ordeqays waa aniga markaas la dawaqay waa isku dhar waa isku timo waa isku hadal waa isku gad simadaad boqorkii baa loo noqdo leeyahay boqorow meeshii nin kaliya ma fadhiyeen 20 baan helay 20 nin oo wada qays ku yahay anagu garan mayno boqorkii baa inantii u yimid aabo ninkii 20 buu noqday waxay tirin ana garan qayskii dhabtaha aniga garanaye nin walba soo qaado qol ku xareeya qol baa lagu xareyn qol baa lagu xareynaya qol dagaysta waad maqlaysaan insha Allah markaas nin walba qolka lagu xareeyo waxa loo geynayaa nin xoog leh oo seefota ayaa loo geynayaa markaas su'aal baa la weydiinoo la leeyahay ma qays baa tahay markaas uu leeyahay qays baan ahay ana qays waxa kale waa beenalayaal markaas uu leeyahay haddaad qays tahay oo leeyla aad jeceshahay waxay ka tiri jirkaaga bar ii soo goo bala Musa waad qosasheen kii horeeya loo yimid ma qays baa tahay ha qays baan ahay le laba nin xoog la loo keeno sayf wadata moogtahay oo askara waana aqalkii boqorka waa la soo xereeyay lama baxsan karo ma qays baa tahay ha gabadhi waxay ku tiri haddaad qayskii dhabta aad tahay jirkaaga bari soo goobay ku tiriye halkeenu goynaa noo dhib ha goynay markaas uu war qays ma yihiin hadarid sidaayo albaabkaagu ka baxay وصلي يا حبيبي mid bamar sidii loogu iimanayo mid walba uu lahaa war qaysna ma yihiin adarisiidaya ilaahay da taqaanaan oo halka uga baxayay ayaa isagii dhabta ahaa la dul yimid oo la dul taagay wa qays baa tahay markaas uu insha Allah ha aniga qays kuwa kalena wallahi waxay yihiin garan maayo meeshan bay igu yimaadeen oo gabadha waa jeceshahay ha waan jecelahay iyadna way jeceshahay da waxay ka tiri jirkaaga bari soo goo halkeen goynaa noo sheeg wuxuu yiri ayada ku noqdo ku dhahada halkee baad jecesho ku soo gooya ka dhahada buu markaa bay tiri qayska dhabta waa ka ii soo saaray bay tiri maxabada ku hore maxay hayd baan maxabada ninkana nabiyullaahi muhammad alayhi salatu wasalaam waa nabigeeni waa rasuulkeeni waan jecelahay laakiin dhalinyaradeenu maanta ma John iyo Bomb bay u egyihiin mise Muhammad bay u egyihiin bali sheega ya ma John iyo Bon iyo Tyson iyo shaydaan bay u egyihiin mise Muhammad iyo Umar iyo Abu Bakar bay u egyihiin hada تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع جعيلك أد شيغانيسو إلا دحي
إلهي وأن جعلهي وأن آمنسنهي ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام وأن جعلهي وأن آمنسنهي وحي جعيلته أي سحن قنيسا وأمرك النبي محمد أتقضيت يهود بان لقديد محبة كلية محبة قولية يهود بان إلهي كديدي وحير هذين إلهي أنك وأن جعل لهي مرقاسا إلهي سودجي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم يا محمد وحد كتر هذا نمك يهودين حداتيك وإلهي جعل وحد كتر هذا هرتاني قيسور رعكني إلهي جعل لدي سواحد دليل برهان كأه اتباع محيقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيا معشر الشباب لن يرادوا بدنته المجلس كان فريست إن شاء الله دقاقة جوجية كيس سعودنا فريسية إنكم رجنا واوين خير باي نقاب مقددين جعل بعد مسكيتك وصو عمرتين لكن جعل كواحد قدرنا عمل فلكي ما قدرنا إن شاء الله هذا إن شاء الله هذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سيرة دي سام برانينا سورة دي سيبان يلانينا سورة دي سوامعي قابك نبينا ودق ميبان ودق مينا سيرة دو ودقن كيسي قابك ودق مايي قابك ودق مايي جار كيسان جارك ودق مينا قابك ريريس ودق مايي ريرين ودق مينا قابك دليرد ودق مينا دليردين ودق مينا قابك مساكين ودق مينا مساكين ودق مينا قابك النبي مجتمع ودق مايي أيان مجتمع ودق مينا نبينا عليه الصلاة والسلام ما عرون جرين ما عيتم جرين ما الحن ما فريسان جرين هذا الحن كما هل جرين حديث وضد ودلي ما دنا صدح جرب النبي السلام جرين ضد كاس هذا النبي عيدو تمادو وحق هذا بقى كجت ما دي الله اللان قرت النبي ما قالوا عينين ولكن النبي سكا قفك ودا جلسنا يقابل أي هذا النبي قف سلام ينا قعدت مديك بكو سلام جري هذا قف وحسين ينا قعدت مديك بكو سين جري هذا عيد وحكا قادنا ينا مديك توكا قادنا يي هذا عنت عنا ينا مديك توكو عنا يي هذا بيا عبا ينا مديك توكو عبا يي هذا مسكيتك سوق لايو مديك توكو سوق لايي هذا أقل جيس وقلا ينا دعاء آخر السنة بيقولها هذا در حنانا ينا حقوك بلا باي بدكت در قال شدا در حنا شدا مدكت وكو بلا بجري در كمركو سيبي ينا بدحد النبي كو سيبي جري كما مركو حدنا مدكت يقلن جري مركو سيبي ينا بدحد هريسين جري رسول هذو تما إسكحيرة ينا حقوك بلا باي بدكت إن يرى تمها إن لقى حيرة إن اللود دايب النبي قارك صلى الله عليه وسلم بركاب النبي عليه الصلاة والسلام كي يرابو يدي أبيه مي يقول يا رب الله يا ري أما تمها كولا حير أما تمها هو داب النبي كويلي عليه الصلاة والسلام أما تمها ها كولا حير أما تمها maalmahan waxaan arkay kuwo timo waaweyn timihii barigii hore afroogi yaan dhalinyarada ka arkay kuwaasaa la qaatayba iminka warba tima haddaad daynaysaan iska daayaa xirinay ama wada xiira buu nabigu leeyahay ama wada daaya waa dhaqankiisi waa dhaqankii islaamka inaad nabi maxamed ku dayataa waa diin inaad gaala ku dayataana waa diin la-aan بدحدا وحبا كما عونين كما عبين بدحدا waxa loogu tala galay zuuliga lagu gala بدحدا waxa loogu tala galay awrada marka la meeray ayaa lagu meeydhaa بدحدا waxa loogu tala galay saxarada la iskaga biiya بدحدا waxa loogu tala galay qandhuufta ayaa laga tufaa بدحدا waxa loogu tala galay wixii aan wanaagsanayn wixii wanaag oo dhan midigtu nabigu isticmaalay
duu seexanayo xaguu seexanaya midigta maxaa midigta loogu seexanayaa wadnaha bini aadamku bidixduu ku yaalaa dhakhtaradii baa imika kule waxaa xaqiiqo oon helnay bay ku leeyihiin dadka midigta u seexdaa ka caafimaad badan dadka bidixda u seexanaya sababtu waa maxay bidixda wadnaha bini aadamka ayaa ku yaala haddii bidixda loo seexdo culayskii miisaanka ku dhacaya wadnaha waxau qofkaasi halis u yahay inay gacan iyo lugtu ay baktido hadda iyaku sheegeen cilmiga walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam 1400 sano ka hor ayuu inoo sheegayaa uu leeyahay haddii midkiin habeenka uu seexanayo xagga midigta ha u jibsada buu rasuulku yidhi gaaladu ma ogtahay markay zuuliga galaan biyaskagama dhaqaan warqadun bay ismariyaan marka xagga way ka cad yihiin xagga dambana way ka urayaan dhakhtaradii jarmalka ugu qiimaha badnaa adduunka ayaa waxay dadka kula taliyaan huteelada iyo meelaha dadku ay ku kulmaan ee zuuliyada laga sameeyey dadka biyo u dhiga bay leeyihiin waayo waxaan ogaanay dadka muslimiintu inay ka caafimaad badan yihiin kuwa gaalada ah weliba xanuunada inta badan duburka iyo cawrada ku dhaca waxaa la ogaaday gaalada inay ku dhacaan ay ku badan yihiin muslimiinta ku yar yihiin sababtu waa maxay dee qofka muslimka maalintii imse jeer buu hoostiisa maydhaya diintan islaamku waa diin dadnimadaday dhisaysaa nadaafaday ku dhisaysaa iimaankay ku dhisaysaa akhlaaqday ku dhisaysaa lidaalika dhallinyaradeenna waxaan leenahay wiilal iyo gabdhaba waxaan ku talinaynaa nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam han jeclaanno oo dhaqankiisi iyo hadigiisii han raacno oo diintii inoola yimiday han baranno imaam ashaafici raximahullah ayaa wuxuu lahaa dardaaran cajiiba maqaalo cajiiba wuxuu yidhi ninkii adduunyo doonayo cilmiga baro ninkii aakhiro doonayo cilmiga baro ninkii guul doonayo cilmiga baro ninkii sharaf doonayo cilmiga baro ninkii adduun iyo aakhiro doonayo cilmiga diinta baro limaada barashada diintaada aad barato waxaad ku noqonaysaa qof wanaagsan baad ku noqon